warmurtiyeed muqdisho Soomaaliya 14 Juun 2026 shirka wada tashiga beesha habargidib maanta oo ay taariikhdu tahay 14 Juun 2026 waxaa shir ballaaran isugu yimid beesha habargidib kaas oo uu shir gudoominayay ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur shirweynaha ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee Galmudug beesha habargidib waxay garwaaqsatay in doorashada Galmudug saameyn taban ku yeelan karto nabadda xasiloonida iyo midnimada guud ee Soomaaliya gaar ahaan Galmudug shirweynaha ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka sida daraadeed wada tashi iyo doodo qoto dheer oo ay beeshu ku yeelatay mas'uuliyadda ka saaran ilaalinta nabadda xasiloonida iyo wadajirka dalka gaar ahaan Galmudug waxaa la isku raacay qodobadan soo socda in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Galmudug iyo dhammaan hormuudka beesha dega Galmudug ay mudnaanta koowaad siiyaan ilaalinta nabadgelyada xasiloonida midnimada iyo wadajirka Galmudug labo in maadaama uu dhamaaday muddaxileedkii sharciga ahaa ee dowlad goboleedka Galmudug si degdeg ah loo qabto doorasho loo dhan yahay heshiis lagu yahay daah furan isla markaana ay ka qayb qaataan dhammaan saamilayda siyaasadeed iyo bulshada Galmudug saddex in laga fogaado wax kasta oo saameyn taban ku yeelan kara nabadda xasiloonida wadajirka reer Galmudug sidoo kalena khilaaf kasta oo la xiriira arrimaha doorashooyinka waa in lagu xaliyaa wada hadal isafgarad siyaasadeed iyo hannaan nabadeed oo ay qayb ka yihiin dhammaan dhinacyada ay khusayso afar beesha habargidib waxay gogol wada tashi dib u heshiisiin iyo nabadeyn u fidinaysaa dhammaan beelaha reer Galmudug gogashanna waxaa lagu xoojinayaa wada noolaanshaha iskaashiga kalsoonida iyo is-afgaradka siyaasadeed si loo adkeeyo midnimada iyo wadajirka reer Galmudug shan beesha habargidib waxay ummadda Soomaaliyeed ugu ducaynayaan nabadgelyo midnimo iskaashi horumar iyo dowladnimo ku dhisan cadaalad wadajir iyo ka gudbidda khilaafaadka iyo dibdhaca muddada dheer ragaadiyay dalka lix beesha habargidib waxay si gaar ah ugu mahadcelinayaan ugaaska beesha Cayr oo martigeliyay gogashaan iyo dhammaan hormuudka beesha habargidib ee ka soo qayb galay shirkan dadaalkii ay geliyeen qabsoomidda kulanka iyo doorka ku aadan ilaalinta nabadda wadajirka iyo mustaqbalka Galmudug toddobo beesha habargidib waxay ku baaqaysaa in khilaafka siyaasadeed ee guud ahaan ka jira dalka Soomaaliya aan lagu xalin xabad ee lagu xaliyo wada hadal iyo isafgarad ugu dambeyntii ilaalinta nabadda wadajirka iyo heshiiska reer Galmudug waa mas'uuliyad wadajir ah oo ka sarreeya dana gaar ah waana tiirka lagu xaqiijin karo mustaqbal xasiloon oo loo dhan yahay wabillahi tawfiiq marwa fertility center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxaddii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta waxaa lagu dhisaa mustaqbal marwa waa furaha qoyskaaga berri soo booqo ama nagala soo xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda